daawadayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad oo ilaa hadda sameeyay isbedelo kala duwan oo gudaha hay'adda ah waxaana magacaabay xubno cusub haddaba magacyada xubnahaas iyo xilalka loo magacaabay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaw oo dib ugu laabtay magaalada Jowharna waxa uu ku dhawaaqay dagaal culus xilli ay markaasi isku kacsan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga markaasi ka bayray inuu soo dhiso haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanada Hirshabelle ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo sababta keentay in xilligan madaxweynaha Hirshabelle uu dagaal iclaamiyo lafta gareenna waxa uu markaasi ku tilmaamay in Soomaaliya ay gashay gumaysi qarsoon oo uu kala jeeday madaxweynaha cusub ee iminka la doortay villa Soomaaliyana waxay shaacisay inay dhinteen qaar ka mid ah dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fisan aynu ku bilownay warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad ilaa hadda uu sameeyay isbedelo kala duwan oo gudaha hay'adda waxaana uu magacaabay xubnahani kow Cabbaas Yacquub waxaa loo magacaabay kaaliyaha maamulka wuxuuna ka soo jeedaa beesha direed laba Dr. Cabdilaahi Cabdiraxmaan waxaa loo magacaabay kaaliyaha sirdoonka wuxuuna ka soo jeedaa beesha dirta koonfureed saddex Aadan Dheere waxaa loo magacaabay kaaliyaha ciidanka wuxuuna ka soo jeedaa beesha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cawaale kuna magac dheer Professorka waxaa loo magacaabay kaaliyaha xafiiska taliyaha wuxuuna ka soo jeedaa xaafad hoosaadka agaasimaha Niisa Maxamed Kaafi ayaa waxaa loo magacaabay kaaliyaha warbaahinta wuxuuna ka soo jeedaa xaafad hoosaadka agaasimaha Niisa Xamdi Xasan waxaa loo magacaabay taliyaha Niisa ee garoonka diyaaradaha waxaana ka soo jeedaa xaafad hoosaadka agaasinka Niisa Muxidiin Warbac waxaa loo magacaabay taliyaha caasimadda magaalada Muqdisho wuxuuna ka soo jeedaa xaafad hoosaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyntiina todobadan xil ee hadda la magacaabay afar ka mid ah waa kuwo cusub oo hadda la abuuray sida markaasi aynu xogta aynu ku helnay Mahad Salaad ayaa dardargelinaya shaqada hay'adda Niisa isagoo ilaa hadda qaaday tallaabooyin waaweyn oo looga jawaabayo in isbedel lagu sameeyo hay'adda Niisa wixii ka dambeeyay markii xilka ay ka dageen taliskii hore uu hogaaminayay madaxweyne hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen oo dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa iclaamiyay guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab madaxweynaha oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka afhayeenka madaxtooyada Hirshabelle Daawud Xaaji Cire oo soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha kadib warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ayaa sheegay in Cali Guudlaaw uu madaxda qaranka kala hadlay laba arrimood oo kala ah kow gurmadka abaaraha iyo dagaalka lagu qaado kooxda Al-Shabaab afhayeenka ayaa sheegay in labadaasi qodob ay madaxda qaranka ku ballan qaadeen Cali Guudlaaw inay kala shaqeyn doonaan maamulkiisa isagoo sheegay in howlgalida ay hadda ka bilowdeen gobolka Hiiraan madaxweynuhu waxa uu kulamo muhiim ah la soo qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxyaabaha ugu muhiimsan ee madaxda uu kala hadlayna waxay kala ahaayeen in dadka reer Hirshabelle abaarta looga gurmado iyo in deegaanada Hirshabelle laga bilaabo howlgal lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ayuu yiri Daawud Ciro waxa uu sheegay in caqabada ugu weyn ay maamulkaasi ka hayaan Al-Shabaab sida aad ogtihiin howlgalka waxa uu hadda ka bilowday gobolka Hiiraan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu howlgalka ka bilaabanaya dhanka Cadale ayuu hadalkiisa ku sii daray afhayeenka madaxtooyada Hirshabelle maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka oo garab ka helaya maamulka gobolka Hiiraan iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka Hiiraan halkaas oo laga saaray Al-Shabaab sida uu shaaciyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayt Usmaan dhinaca kalena villa Soomaaliya waxa ay shaacisay inay dhinteen qaar ka mid ah dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaaro marti ku ahaa barnaamij ka baxa TV-ga Somali Cable ayaa si cad u sheegay in qaar ka mid ah dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ay siyaabo kala duwan u dhinteen
cabdikariin ayaa intaasi raaciyay in dhalinyarada dhimatay waalidiintooda ay markaasi akhbaartu gaartay isagoo ballan qaaday in waalidiinta aan helin xogta in wiilashooda dhinteen uu isagu siinayo. waxaan kuu qorayaa lambarkayga ilaa ay soo hadashay waalidkii aan wiilkiisa dhintay warka ka helin aniga xogta siinaya ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo qof su'aal weydiiyay u jawaabayay. barnaamijkan oo ahaa mid su'aalo lagu weydiinaya afhayeenka ayuu sidoo kale ku shaaciyay dowladda Soomaaliya ku howlanta sidii dhalinyaradaasi dib loogu soo celin lahaa dalkooda. mar la weydiiyay su'aal ahayd lacag dhan 50 milyan madax furasho lagu haysto dhalinyaradaas ayuu ka meermeeray inay ka jawaabo, wuxuuna wariyaasha Soomaaliyeed u soo jeediyay in iyagu ay baaraan xogtaasi. ugu dambeyntiina afhayeenka madaxtooyada qaranka ayaa sheegay in dowladda ay ballan qaadayso in dhalinyaradaasi inta ka nool dalka dib loogu soo celinayo iyagoo tababaran oo dalka anfacaya. dadka iyo dowladda Soomaaliyeed xilli ay ugu baahi badan yihiin ma jirto maanta inay helaan 5,000 oo wiil oo tababaran. waa la keenayaa waalidiinta Soomaaliyeedna waa ay ka warhayaan caruurtooda inta dhimatay, inta noolna waa ka warhayaan waana la keenayaa inta nool ayuu yiri Cabdikariin. waxa uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh in amni ahmiyad gaar ah u leeyahay isla markaana marka askartaasi ay muhiim u yihiin qorshaha amniga ku soo dabaalida dalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo xalay ka jeedinaya xaflad loogu dabaaldegayay 1 Luulyo oo lagu qabtay Baydhabo ayaa sheegay in xilligii Soomaaliya ay ka xoroobaysay Talyaaniga iyo Ingiriiska ay ahaayeen kuwo midaysan oo ka gooneed in dadka ka dambeeya xornimo ku noolaadaan. Laftagareen ayaa nasiib daro ku tilmaamay in 62 sano kadib xilligan dowladnimada Soomaaliya ay marxalad adag gashay isla markaana uu dalka ku jiro gumaysi qarsoon oo meelo kale laga soo maleegay inkastoo uusan markaasi shaacin meelahaasi. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa khudbadiisa ku sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed maskaxda laga qabsaday isla markaana dadkooda dowladooda iyo caalamkooda intaba lagu jiro iyagoo u soo maleegaya dhibaatooyin kala duwan. Laftagareen ayaa hadalkan sheegay xilli isaga xitaa lagu eedeeyay inuu dalka u diiday xorriyadii asaasiga ahayd sida xorriyadda hadalka, doorashada iyo soo imaatinka isagoo koonfur galbeed geliyay nidaam u eg keligii talisa. Soomaaliya ayaa maanta lagu dabaaldegaya markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka xoroobeen gumaysigii Ingiriiska isla markaana ay la midoobeen gobolada waqooyi ee hadda loo yaqaan Somaliland. maanta oo kale 62 sanadood ka hor waxaa midoobay labadii gobol ee koonfur iyo waqooyi ay kala maamuli jireen gumaysigii Britain iyo Talyaaniga. xaflada iyo munaasabado lagu maamuusayo xuska 1 Luulyo oo ku beegan 60 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay xornimada qaateen 1960 iyo israaci gobolada waqooyi koonfur ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo si joogto ah dabaaldega noocan loogu qabto. caadi ahaan shacabka Soomaaliland hase yeeshee u dabaaldegin sanad guuradii ka soo wareegatay israaci gobolada. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta.